الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد warbixin kooban oo ku saabsan macahadka Imaam Al-Muzani ee barashada Islaamka iyo luqada Carabiga. Macahadkaas waxaa la furay 22 bishii Rabiic Thani 1433 oo ku aadan 15 bisha saddexaad 2012. macadkaas waxaa laga furay magaalada Gaalkacyo, dhinaca koonfureed baa laga furay. macadkaas furudiisa waxaa iska kaashaday walaalo Soomaaliyeed iyo walaalo kale aan Soomaali ahayn ee wadamada muslimiinta dhismihiisa iska kaashaday. sababta loo dhiso waxay ahayd macadkaas in deegaankaas Gaalkacyo iyo Mudug iyo xataa Galgaduud in laga faa'iideysto. sababtii wadanku waa burburay, waxaa burburay kow shakhsiyadda qofka Soomaaliga, dagaal joogta iyo burbur iyo qax iyo barakac iyo dhalintii oo qaad iyo isbaaro iyo jahli runtii ku dhammaatay ayaa waxay go'aansadeen akhyaar walaalaah oo deegaanka u dhashay in la aasaasay macadkaas. macadka marka xilligaas la furay. macadkaas wuxuu ka kooban yahay fusuul wax lagu barto iyo xafiisyo iyo maktabad weyn oo kutub aad u fara badan taalo oo runtii aan oran karo waa kutubta ugu qaalisan ugu qiimaha badan ee shariicada Islaamka iyo luqada Carabiga iyo taariikhda Islaamka iyo thaqaafada si guud laga faa'iideysan karo. masaajid weyn baa ku yaala asagana oo lagu talagalay arday inay ku tukadaan iyo darisku labadaba. wuxuu furan yahay macadkaasi muddo 8 sano ah furan yahay. waxaa ka baxay 113 arday baa ka baxday oo 77 ay rag yihiin, 36 ay dumar yihiin. dadkaas waa dad kala duwan. qaar waa macallimiin, dadka waxbay baraan, shuyuukh duruus masaajid wax ka akhriyaan, qaar waa ganacsato, waa nooc kala duwan waay. runtii aad iyo aad ayaa looga faa'iiday macadkaas deegaanku uga faa'iiday. baahida marka loo baahan yahay maxay tahay hadda? kow dadku inay taageeraan macadka taageeraan oo u taageeraan si macnawiye si maadiya labadaba. inay taageeraan rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel, ganacsato, siyaasiyiin, culumo, aqoonyahan kulli in la taageero macadka. sababtu waa maxay? dadkii maskaxdooda u dhisahayaa, waxbuu barahayaa, jahligii buu ka saarahayaa. taa waa qodob. qodobka labaad waxa weeyaan oo taageeridaahay dadku inay wax bartaan, macadka in la tago oo laga faa'iideysto oo qof ragga iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo waayeelku inay ka faa'iideystaan. xilli kasta waa furan yahay, subax, galab, hamiin. maktabad weyn baa taalla, ciddii maaragtay wax daalacanaysa, wax akhrisanaysa, irduhu waa furan yihiin. marka in laga faa'iideysto oo runtii qofkii wax baranahaya iyo kii wax daalacanahaya. waxaan xusuustaa nin weyn oo oday magaalada kula ganacsadaa inuu hikaayadda ku bilaabay iyo maxaan ku radaa qoridda farta, akhriska iyo qoraalka, haddana uu ka qalinjabiyey maaragtay uu ku aflaxay. qodobka saddexaad u dambeeya waxa weeyaan waxaa la rabaa in maadiyan loo taageero oo waxbarashadu kharash bay u baahan tahay. dad baa dhisay oo maaragtay maalgeliyey, dad baa kutubta keenay oo soo dhiibay, khayr allaha siiyo. qaar baa gaday. waxaa la rabaa in la maalgeliyo meelahaas wanaagsan oo macadka Imaam Muzani ka mid yahay oo lagu dhisayo maskaxda iyo caqliga iyo aqoonta in laga qayb qaato oo la taageero oo dadka gudaha jooga iyo kuwa bannaanka jiraaba inay taageeraan, ee wax ku bixiyaan, ee ku waqfadaan, oo aabbayaashood hooyooyinkood u sadaqaystaan oo ay kharash ku bixiyaan. ardada kafaala qaadidooda, macallimiinta mushaarkooda, maamulka, dadka ka shaqaynaya in laga warqabo oo la soo booqdo oo la dhiirigeliyo. midda la rabo waa saas weeye. waxaa la rabaa bulshada iskale macadkan.
bulshada loo dhisi bulshada wax ku barata waxaa la marka inay saa u fahmaano ay ka warqabaano maal gashadaano kharash ku bixiyaano ilaalsadaano dhowraano dhismihiisa dayactirkiisa ilmaha waxbaridooda mushaarka macallimiinta inay ka qayb qaataan ayaa la rabaa marka walaalaha waxaan u sheegaynaa gudaha jooga ma bannaanka jira ee deegaanka u dhashay ama si guud inay taageeraan meelahaas oo kale wax lagu barto macadka imaam almusani lidarasaat islaamiya واللغة العربية inay taageeraan oo ka warqabaan oo markay yimaadaan soo boqdaan wax ku bixiyaan oo ay waqfadaan waalidka u bixiyaan baa la rabaa jazaakum allahu khayran allah ina barakeeyo intii ka qayb qaadatay hadda ka hor ee ama dhistay dhismaha ka qayb qaadatay kutubta keentay ee kharash kale ku bixisay khayr allaha siiyo inta kaloo ka qayb qaadan doontana khayr allaha siiyo aad iyo aad u mahadsan tihiin khayr badan allaha siiyo ragga hadda maamula macadka oo darasada maamula iyo macallimiinta iyo ardada iyo waalidiinta iyo guddiga khayr badan allaha ina siiyo waxaa kelmaddaa jeediyey maxamuud sheekh axmed xasan sheekh abushayba ayaa jeediyey oo madax ka ah guddiga sare ee maaragtay boorka ama taasiiska ee macadka aad iyo aad u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh